daraasad la sameeyay taariikhdu markay ahayd 2014 ayaa lagu sheegay koonfurta Soomaaliya in ay ku nool yihiin dad gaadhaya 8,808,715 qof halka la sheegay daraasadda in ay Somaliland ku nool yihiin 3,500,000 qof. daraasaddan oo la sameeyay 2014 ayaa sidaas sheegtay. The Somali diaspora refers to Somalis who were born in Greater Somalia and live in parts of the world where they were not born. Qurba joogta Soomaaliyeed waxaa loola jeedaa Soomaalida ku dhalatay dhulkii Soomaaliya kuna nool meelo kale oo adduunka ka mid ah kuwaasi oo aysan ku dhalan. The civil war in Somalia has significantly increased the number of Somali diaspora. Dagaalkii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya wuxuu si weyn u kordhiyay tirada qurba joogta Soomaaliyeed maadaama Soomaali badan ay ka soo guureen dhulkoodii oo ay ugu horeeyaan dhulalka ay degeen jasiiradda Carabta, Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Afrika iyo Australia. warbiximuhu intaa waxay ku darayaan in Ethiopia ay ku nool yihiin Soomaali gaadhaysa 4 milyan halka Kenya ay ku nool yihiin Soomaali gaadhaysa 2 milyan. waxay warbiximuhu intaa ku darayaan in South Africa ay ku nool yihiin dad gaadhaya 27,000 ilaa 40,000 inta u dhaxaysa oo Soomaali ah halka ay wadanka Sacuudi Arabiya ku nool yihiin Soomaali gaadhaysa 34,000 ilaa 67,000. Zambia waxaa ku nool 3,000 ilaa 4,000, Belgium waxaa ku nool 2,000, Eritrea waxaa ku nool 2,000, France waxaa ku nool 2,000, Pakistan waxaa ku nool 2,000, Libya waxaa ku nool 2,000, Algeria waxaa ku nool 1,000, New Zealand waxaa ku nool 1,000, Ireland waxaa ku nool gaadhaysa 1,000 halkaas oo tirada guud ee qurba joogta Soomaalida ka dhigaysa 1,998,764 qof. daraasaddu intaa waxay ku daraysaa koonfurta Soomaaliya inay ku nool yihiin dad gaadhaya 8,808,715 qof halka Somaliland ay ku nool yihiin 3,500,000 qof. inkasta oo daraasaddan la sameeyay 2014 balse daraasaddii ugu dambeysay ee la sameeyo 2021 ayaa waxay tirada guud ee Soomaalida ka dhigaysaa 16,364,604 qof. daraasaddan oo la sameeyay taariikhdan sanadkan 2021 ayaa waxa ay tilmaamaysaa heerka dhalashada iyo heerka dhimashada ee dalka Soomaalida iyadoo heerka dhalashadu uu yahay 1,832 qof maalintii inay dhashaan halka ay dhintaan 464 qof. waxa aana dalka ka baxa maalin walba 93 qof in u dhiganta halkaasi oo laga arkayo heerka kororka ee dadka Soomaalida iyadoo sanadkii 1960 daraasad la sameeyay ay tirada dadka Soomaalida ku sheegtay 3,860,000 oo qof halkaasi oo sanad walba si joogto ah loola socday kororka ku imanaya tirada dadka Soomaalida iyadoo 2021 ay noqdeen 16,359,504 qof iyadoo oo halkaas ay ka muuqato xawli siyaada ah oo ku kordhaysa tirada Soomaalida. waxay saadaashu sheegaysaa 2090 in ay Soomaalidu gaari doonto 75 milyan haddii eebaha awoodda leh nagu simo. bal haddaba daawadayaal waxa aynu soo qaadan doonaa magaalooyinka sida ay Soomaalidu ugu kala nooshahay tira ahaan. magaalada Muqdishona waxaa la sheegayaa in ay ku nool yihiin dad gaadhaya 2,388,000 qof. magaalada Hargeysana waxaa daraasaduhu sheegayaan in ay ku nool yihiin dad gaadhaya 1,363,205 qof. weliba daraasaddan oo la sameeyay 2021. magaalada Kismaayo waxay daraasaduhu sheegayaan in ay ku nool yihiin dad gaadhaya 499,425 qof. daraasaddan oo la sameeyay 2021. haddii aynu ku xigsiino magaalada Berbera, daraasaddu iyadana waxay sheegaysaa in ay ku nool yihiin 78,047 qof. daraasaddan ayaa iyadana sidoo kale la sameeyay sanadkii 2021. magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa daraasaddu iyadana waxay sheegaysaa in ay ku nool yihiin dad gaadhaya 155,832 qof. magaalada Boosaaso ayaa iyaduna daraasaddu waxa ay sheegaysaa in ay ku nool yihiin 107,326 qof. daraasaddan ayaa iyadana la sameeyay sanadkii 2021. haddii aynu ku xigsiino magaalada Beledweyne ayaa iyaduna daraasaddu waxay sheegtay in ay ku nool yihiin dadweyne gaadhaya 94,150 qof. daraasaddan ayaa iyadana sidoo kale la sameeyay 2021.
magaalada Baydhabo ayaa iyaduna waxaa ku nool 76,839 qof. daraasaddan ayaa sidoo kale iyadana sanadka 2021 la sameeyey. haddii aynu ku xigsiino magaalada Gaalkacyo, daraasaddu waxay sheegaysaa in ay ku nool yihiin dadweyne gaadhaya 76,149 qof. daraasaddan ayaa sidoo kale iyadana sanadka 2021 la sameeyey. waxaynu ku xigsiinaa magaalada Boorama waxaa ku nool 67,000 qof, magaalada Garowe waxaa ku nool 32,000 qof, magaalada Jowhar waxaa ku nool 34,000, halka magaalada Laascaanoodna ay ku nool yihiin dad gaadhaya 42,000 qof.